Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay ku-xigeenka wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ahna isku duwaha arrimaha gargaarka ee Soomaaliya. Kulanka ayaa looga hadlay barnaamijyada dib u habeynta mashaariicda horumarineed ee qaramada midoobay ay ka fulinayso Soomaaliya iyo arrimaha gargaarka. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa qaramada midoobay uga mahadceliyay taageerada joogtada ah ay siiso Soomaaliya. ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ahna isku duwaha arrimaha gargaarka ayaa isaguna sheegay in qaramada midoobay ay dadaal badan ku bixinayso sidii Soomaaliya ay u gaari lahayd himilooyinkeeda mustaqbalka. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa dhawaan xafiiskiisa ku qaabilay agaasimaha guud ee hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada, dhaqanka iyo sayniska ee magaceeda loo soo gaabiyo UNESCO, waxaana ka wada hadleen dardargelinta taageero badan oo hay'addu ay siinayso Soomaaliya. taageeradaas ayaa waxaa qayb ka ah mashaariic horumarineed oo dhinaca waxbarashada ah kuwaas oo laga fulinayo gudaha Soomaaliya. ugu dambeyn UNESCO iyo Soomaaliya ayaa kala saxiixday heshiis wada shaqeyneed oo hay'addu ay wax uga qabanayso arrimaha Soomaaliya ee waxbarashada, sayniska iyo dhaqanka. dad gaaraya 22 qof ayaa lagu soo waramayaa in cudurka shuban biyoodka ay ugu geeriyoodeen degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. gudoomiyaha degmadaas Maxamed Nuur Cagajoof ayaa warbaahinta u xaqiijiyay geerida dadkaas oo u badan caruur. wuxuu kaloo sheegay in cudurku dhawaan ka dilaacay degmadaas iyo deegaano ku dhow ayna jiraan 70 kale oo la liita xanuunkaasi. dadka xanuunsan ayaa iyaguna u badan caruur. waxa uu sheegay in ay yaalaan goobo caafimaad oo ku yaala degmadaasi. waxa uu walaac ka muujiyay in xilligan ay ka heli karaan degmada gudaheeda adeeg caafimaad ay u baahan yihiin. gudoomiyaha degmada Jalalaqsi ayaa tilmaamay in degmada iyo deegaanada hoos yimaada ay ka jirto macaluul ka dhalatay dhibaatooyinkii ay geysteen fatahaadihii webiga Shabeelle ee kal hore. Cagajoof ayaa ugu dambeyn gargaar degdeg ah oo lagu caawinayo dadkaas waxna looga qabanayo cudurkaasi soo kordhay. waxa uu ka dalbaday maamulka gobolka Hiiraan, kan Hirshabeelle, dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo hay'adaha kala duwan ee samafalka. 6 qof oo kalluumaysato ah ayaa ku dhintay dabaylo ku dhuftay xeebta magaalada Muqdisho, waxaana raq iyo ruux wala la'yahay kuwa kale. qaar ka tirsan kalluumaysatada la soo badbaadiyay oo marka ay dabayluhu imaanayeen ku jiray badda ayaa sheegay in dabayshu ay ahayd mid xoog badan ilaa iyo haddana aysan badda geli karin doomaha yaryar ee ay ku kalluumaystaan. waxaa kaloo sheegay in doomihii yaryara oo dhan ay ku burbureen dabayshaas, meydadka qaarkood iyo burburkoodana laga helay meel masaafo ahaan u jirta magaalada Muqdisho ilaa 100 mayl. wararka ugu dambeeyay waxay sheegayaan in ay joogsadeen dabaylihii xoog badnaa, doomaha yaryarina ilaa iyo hadda aysan geli karin badda. dowladda Mareykanka ayaa $5 milyan ku doonaysa muwaadin u dhashay dalkeeda oo xubin ka ah maleeshiyada Al-Shabaab. Mareykanku waxa uu sheegay in lacagtaas uu ku abaalmarin doono cid kasta oo ku caawisa sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen sarkaalkaas ka tirsan Al-Shabaab oo lagu magacaabo Jihaad Sarwaan Mustafa. wararka ka imaanaya degmada Diinsoore ee gobolka Bayna waxay sheegayaan in goobo ka tirsan degmadaas lagu daadiyay warqado uu ku qoran yahay ballanqaadka dhaqaalaha lagu doonayo ninkaas magaciisa iyo sawiradiisa. Jihaad Sarwaan ayaa la sheegay in da'diisu ay tahay 37 jir uuna yahay sarkaalka ugu darajada sareeya ee Al-Shabaab ka soo jeeda dalka Mareykanka. maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta furay barnaamij cusub oo loo adeegsanayo qaadista canshuuraha kala duwan ee gobolka. mashruuca ayaa ku bilaabanaya gaadiida ku wareegaya degmooyinka gobolka oo dhan oo bulshada ku wacyigelinaya inay fahmaan ahmiyadda canshuurta isla markaana ay bixiyaan. gaadiidka ayaa sidoo kale ka qayb qaadanaya qaadista canshuuraha si looga dhaqangeliyo gobolka Banaadir oo dhan. barnaamijka ayaa la sheegay in sidoo kale uu qayb ka yahay nidaam lagula dagaalamayo musuqmaasuqa iyo in la diido canshuurta. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Finiisho oo furay barnaamijka ayaa shacbiga Soomaaliyeed ku booriyay in ay bixiyaan canshuurta. gudoomiyaha waxa uu tilmaamay in canshuurta ay laga maarmaan u tahay dowladnimada, dibna loogu celinayo shacabka laga qaaday, ujeedaduna ay tahay in lagu horumariyo adeegyada kala duwan. ururka midowga Yurub ayaa Soomaaliya waxa uu ka bilaabay mashruuc lagu horumarinayo tayada waxbarashada. mashruuca oo ay ku baxayso lacag gaaraysa 5.7 milyan oo euro ayaa la sheegay in lagu taakuleynayo wasaaradda waxbarashada ee maamul goboleedyada dalka. arrimaha loogu talagalay mashruuca ayaa waxa ka mid ah iswaafajinta siyaasadaha waxbarashada, hirgelinta manhajka cusub, xoojinta tayada nidaamyada heerarka tacliinta, hagaajinta imtixaanaadka iyo qiimeynta guud ee waxbarashada dalka.
danjiraha midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa amaanay dadaalka dhinaca waxbarashada ah ee ka jira dalka Soomaaliya oo uu sheegay in uu horseedi karo horumarka la higsanayo. waxaa intaas ku daraya in midowga Yurub uu Soomaaliya taageero joogto ah ka siinayo horumarinta waxbarashada iyo mashaariicda kale. wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in deeqdani ay xoojinayso dadaalka lagu jiro mideynta iyo horumarinta waxbarashada Soomaaliya waxa uuna u mahadceliyay ururka midowga Yurub. madasha lagu furay mashruucaasi ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka kala socda maamul goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir. xisbiga mucaaradka ah ee wadaniga Soomaaliland ayaa ka dalbaday madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in uu cadeeyo arrimaha ay ka wada hadleen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo dhawaan ay ku shireen magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya. xogayaha guud ee xisbiga wadani Khadar Xuseen Cabdi ayaa sheegay in dadka Soomaaliland aysan ilaa iyo hadda garanayn waxa ay ka wada hadleen madaxweyne Farmaajo iyo Muuse Biixi. waxaa kaloo sheegay in aan laga maarmi karin in shacabka iyo xisbiyada mucaaradka ahba lala wadaago ajendaha shirkaasi. xogayo waxa uu dhaliilay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo kulankaasi ku sheegay sida uu yiri mid labada madaxweyne ay ku kulmeen oo kaliya xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo ay isku macsalaameysay madax Afrikaan ah oo ka qayb galisay shir madaxeedka dowladaha qaaradda Afrika. xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ah ee wadaniga Soomaaliland waxa uu intaas ku daray in ay jiraan arrimo waaweyn oo la qarinayo taasina ay keentay ayuu yiri in aan shacbiga Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka ahba lala wadaagin sida ay wax u dhaceen. madaxweyne Farmaajo iyo Muuse Biixi Cabdi ayaa dhawaan markii ugu horeysay ku kulmay xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya ha yeeshee ilaa iyo hadda dhinacna ma cadeynin waxa looga hadlay kulankaasi. wararka qaar waxay sheegayaan in kulanku uu muddo dheer ba qaban qaabinayay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uuna ahaa mid hordhac ah oo loogu gogol xaarayo wada hadallo guuleysta oo ay yeeshaan Soomaaliya iyo Somaliland. xafiiska xeer ilaalinta Puntland ayaa 7 maalmood dib u dhigay dhageysiga dacwo ka dhan ah dad ku eedeysan kufsi iyo dil loo geystay Allah u naxariistay hooyo Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Hodan Axmed Shallayste oo ku sugnayd gurigeeda oo ku yaala magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland. xeer ilaaliye ku-xigeenka Puntland Maxamed Xareed Faarax ayaa sheegay in dhageysiga dacwada dib loo dhigay oo kaliya maalmo kooban oo la sugayo marxuumadda aabaheed si uu goobjoog uga ahaado talaabo kasta oo ku saabsan dacwada gabadhiisa. wuxuu kaloo sheegay in baarista kiiskaas ay gacan weyn ka geysanayso hay'adda dambe baarista Puntland ee DNA-da oo uu xusay in ay dhacaano ka qaaday dadka loo qabtay falkaasi foosha xun. bishii Abriil ee sanadkii hore ayaa marxuumadda iyo caruurteeda duhur cad lagu weeraray gurigooda oo ku yaala Garowe waxaana halkaasi loogu geystay kufsi iyo dil loo adeegsaday ceejin. booliska magaalada Garowe ayaa fal dambiyeedkaas u qabtay dhowr qof oo lagu tuhmay in ay ku lug lahaayeen. hay'adda baarista hindisaha DNA-da iyo faraha ee Puntland ayaa sheegtay in ay ku guuleysatay kala saarista 50 caruur ah oo la isku haystay aabanimadooda. Dr. Cabdirashiid oo ah agaasimaha hay'adda ayaa warbaahinta u sheegay in si ay u hubiyaan aabaha dhalay ilmaha la isku haysto ay adeegsadeen tijaabada aabanimada ee DNA-da. wuxuu kaloo sheegay in ilaa iyo hadda ay kala saareen 50 caruur ah oo la isku haystay aabanimadooda iyo kuwo kale oo ay ka taagnaayeen su'aalo u baahna in loo helo jawaab sax ah. isagoo sharaxaad ka bixinaya hanaanka ay u mareen fulinta hawshaas ayuu sheegay in 100% ay u mareen habka isbarbardhigga ku celcelisyada halbeega DNA-da kaasoo lagu kala saaro 2 qof ama in ka badan. dhakhtarku waxa xusay in hanaankaasi uu keenay in ay helaan natiijo sax ah oo ay ku wada qancaan maxkamadda iyo dadka shacabka ah. xarunta oo ah tan kaliya ee ku taala gudaha Soomaaliya ayaa ku guuleysatay inay xaqiijiso kiisas badan oo kala duwan kuwaas oo lagu xaqiijin karay oo kaliya adeega ay qabato. kiisaska ay xaqiijintooda ku guuleysatay hay'addu ayaa waxaa ka mid ah baaritaankii ay ku heshay dambiilayaashii kufsiga iyo dilkaba u geystay Caashe Ilyas oo ay da'deedu ahayd 12 jir kuwaas oo 2 ka mid ah la toogtay mid kalena uu yahay dil suge.